فلق بدل فلق بجق سكول لقسان بريهان قاد كذا انت بيج كلا هذو اما تشاج ابو قاطان حبار لبدوده وطنكو شقمله الو يلو دلنتو شيد ما انا نشوفه جابكو شلي ماله الو بوشو شهددو معنا ماله عشقيسو وطنكو شقمله الو يلو دلنتو شيد ما انا نشوفه جابكو شلي ماله الو بوشو شهددو معنا ماله عشقيسو. السلام عليكم وعن صاحبيال كنا سو دوادا mar kale iyo barnaamij cusub oo aan ugu magac daray Sharma Boy shalay iyo maanta iyo Soomaalida iyo meesha loo badan yahay maxaa kala haysta بلغ بدل ورياء بلغ بدل بلغ بجق سكول لقسان بريهان قاد كذا انت بيج كلا هذو اما تشاج ابو قاطان حبار لبدوده بجق سكول لقسان بريهان قاد كذا انت بيج كلا هذو بجاج ابو قاطان حبار لبدوده codkan ama muuqaalkan waa muddo laga joogo hal sano waana sanadkii 2019 waana muuqaalkii ugu horeeyay oo iska soo duuba Sharma Boy haddaba adiga ahaan sidee u aragtay xilligaas muuqaalkan haddii aad daawatay shaki ma laha waxaad markiiba niyadda gashatay qofkan inuusan ahayn qof caadi ah oo wax ka dhiman yihiin balse maanta maxaad ka aaminsan tahay شهددو معنا ماله عشقيسو ودنكو شقة ماله الو يلو دلتو شيد ما انا نشوفه جابكو شلين ماله الو بوشو شهددو معنا ماله عشقيسو ها waan ogahay wax aad ka aaminsan tahay inuu yahay nin abwaan ah oo ummadda iyo bulshadaba waxtar u leh ma garanayo taasi haddii ay tahay xaqiiqada saxda ah laakiin halkan waxaan kugu tusinayaa kommentiyada dadka qaar ay ka bixiyeen heestan qofkan oo meeshan fikradiisa ka soo dhiibtay ayaa waxa uu aaminsan yahay sidan heeskan waa dhulgariir siyaasadeed waana bilowga kacdoonka Soomaaliyeed qofkan kale oo asagana fikradiisa ka soo bixiyay asagana waxa uu aaminsan yahay sidan waxa uu yiri dhabta waa lama huraan wiilashanne dhabta ayay ka hadleen taasi oo micnaheeda ay tahay in heeskan iyo waxa uu ku saabsan yahay oo dhan ay ku qanacsan yihiin ayna ku raacsan yihiin wiilkan yar qofkan kale oo asna fikradiisa halkan ku cabiray ayaa isagana waxa uu leeyahay Soomaaliya heestan xaqiiqada ayay ka hadlaysaa waliba isaga oo dhaaranaya laakiin anigu ahaan maxaan ka leeyahay heeskan mar walba heestu waa cilmi shaydaan haddii ay xun tahay iyo haddii ay wanaagsan tahayba waxaan ula jeedaa haddii ay ka hadlaysa wax wanaagsan iyo haddii ay ka hadlaysa wax xunba mar walba waa heestu waa cilmi shaydaan taasina waxaa marqaati iiga ah mid kamida kuwii fankan ku soo jiray muddo aad u fog oo aad wada garanaysaan isaguna balmax uu leeyahay uu leeyahay markaas uu amaba waraysi uu bixinayay uu kaga hadlayay in dadku ay soo qaadi karaan ay dib u soo qaadi karaan heesihiisii hore isaga oo leh kalaamka Ilaahay ayaa la wada akhrinayaa marka hees oo cilmi shaydaan ah miyaa isku diidaya oo qofkii doonaha soo qaado muhiimadda marka aan ka leeyahay mawduucan ayaa wuxuu yahay heeskan la yiraahdo shahaado micno ma laha runtii qof walbaba oo bini aadan ah oo Ilaahay uu abuuray waxa uu leeyahay fikrad gooni u ah waad yeelan kartaa fikradeeda mid ka duwan ma doonayo inaan ka hadlo xitaa erayada kale ee heeskan ku jira waxaan doonayaa kaliya inaan ka hadlo shahaadadu micno ma laha oo gabi ahaanba aniga aan u arko arintaas inay tahay arin faals ah oo lagu marin habaabinayo caruurtan yaryar ee doonaya inay wax bartaan iyo waliba kuwa hadda waxbarashada ee dhaxda u marayso shahaadadu micno waa ay leedahay waxayna micno ka leedahay meel walba
oo bani aadan uu ku nool yahay amaba Soomaaliya ha ahaato amaba meel kale ha ahaato waa laga yaabaa inay jiraan shakhsiyaad ama dad qaar shahaadooyin haysta oo aan weli shaqo helin taas micnaheedu ma aha in shahaadadoodu gabi ahaanba aysan waxba tarin balse wax walba waa nasiib oo maanta haddii shahaadadaada aad wax ku heli weyso bari ayaad ku heli doontaa taasina shaki kuma jira kaliya dulqaad ayaa loo baahan yahay adduunkan marka saaxiibayaal aniga ahaan waxaan kula talin lahaa dadka wax baranaya ama hadda waxbarashada inay bilaabaan doonaya in ay hore u socdaan oo ay shahaadada raadiyaan waayo shahaadada shaki ma laha maanta hadaadan wax ku helin bari ayaad ku helaysaa marka runtii heeskan dadka ka falceliyay aad ayuu u badan yihiin waa laga yaabaa inay arday ku jiraan maanta ka niyad jabaya shahaado inay helaan oo aaminsan shahaado haddii helaan inaysan waxba u tari doonin saaxiibayaal waa ay jiraan dad haysta shahaadooyin faalsa ah amaba aan haysan wax shahaado ah oo shaqooyin heer caalami ah ku shaqeeya amaba Soomaaliya gudaheeda ama meelo kaleba micnaheeduna maaha dadkaas shahaadooyinka fake ah ama faalsada haysta inay ka qiimo badan yihiin shahaadooyinka saxda ah kuwa haysta laakiin adduunkan waxaan imaan doonta maalin lagu kala bixi doona qof walba waxa uu soo bartay iyo waxa uu haysto fake or false saaxiibayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkaas waxaan rajeynayaa qofna inaan ku xadgudbin haddii uu jiro qof ku xadgudbay waxa aan leeyahay iga raali noqo micnaheedu ma ahayn inaan kugu xadgudbo laakiin fikirkayga ayaan halkan kaga hadlayay waan idin salaamayaa assalaamu calaykum